dhammaanteena waxaan leenahay riyooyin iyo hadafyo waaweyn ee aan rabno nolosha inaan ka gaarno, laakiinse badankeen waxaan ku guuldaraysanaa inaan sameyno tilaabooyinka laga maarmaanka ah si ahdaafteena iyo riyooyinkeena aan nolosha ka leenahay u gaarno. Ma samaysataa qorshe si aad guul u gaarto, haddana ma ku fashilantaa inaad sii wado qorshahaas? Haddii aad ku dhibaatoonayso inaad gaarto riyooyinkaaga iyo hadafka aad nolosha ka leedahay, maanta wixii ka dambeeya xalka aniga ayaa kuu haya. waxaan ahay Jaabir Cusmaan JB, waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa hal subscribe iyo hal like inaad saarto muuqaalkan. ugu horeyn, guusha ugu weyn noloshan laga gaaro ayaa ah in Allah subxaanahu wa tacaala aan raali gelino, noqono dad quman oo toosan si ay natiijada wanaagsan u heli karno maalinta qiyaame. daawadaha sharafta leh, waxaan halkan kugu soo gudbin doonaa sidee lagu gaaraa guul. waxaan ku siinayaa 6 tilaabooyin lama huraan ah oo guusha nolosha lagu gaaro, horena loo soo tijaabiyo. haddii aad si dhab u samayso joogtayso, huwal waxaad ku gaari doontaa guul. sidoo kale dhammaadka muuqaalka waxaan kula wadaagi doonaa 6 calaamood haddii aad ku sugan tahay ama aad isku aragto lagaa rabo si degdeg ah inaad aaga fogaato calaamadahaas halista ah, iyo 6 calaamood aad ku bedeli karto si aad noloshaada ugu dhisato kadibna horumar weyn aad ku gaari karto noloshaada. haddana ku sii dhawow muuqaalkeena maanta. talaabada koowaad, balaan qorshe. ugu horeyn, qorshe sax la imow. talaabada koowaad aad qaadayso waa inaad samaysato qorshe sax ah, qorshe aad samayn karto. ha sameynin qorshe adag adigoo xamaasadaysan, ha qoran qorshe aadan joogtayn karin. ogow daawade, qofka ku fashilma qorshe dejinta wuxuu qorsheeyaa fashil. ugu horeyn, qorshahaaga waqtiyey. haddii aan hadalka kuu jilciyo, samayso jadwal soconaya ugu yaraan 2 bil ilaa 6 bilood, kadib ku dhegso meel aad mar walba ka arki karto sida qolkaaga. waxaad ogaataa daawade, hadaf cad markaad yeelato, talaabada aad qaadayso tan ugu horeysa ayaa ugu adag. marka talaabada koowaad aad qaadayso ha ahaato mid aad kalsooni ku qabtid, kadib markay nafta la qabsato fudeed ayay iska naqdaan. bilowga mar walba wuu adag yahay, waana laga yaabaa mar inaad fashilanto, laakiin weligaa ha quusan inta hadafkaaga aad ka xaqiijinayso. nolosha ma sahlana, waa kufid iyo kicid. daawada samey wax alla wixii aad ka baqaysid, sidaas waxaa kaaga hari doonto baqdinta. talaabada labaad, hard work, shaqada adag. tiirka ugu weyn uguna muhiimsan ee lagu gaaro guusha waa shaqada adag. shaqada adag waxay kaa dhigaysaa mid waayo arag ah. talaabada koowaad oo ahayd qorshe dejin markaad samaysay wax dhaqaajin kara oo miro ka dhalin kara waa shaqada adag. hard working beats talent. shaqada adag waxay garaacdaa xirfadda dabiiciga ah. daawade, maalmaha ugu horeeya yay ku qaadin xamaasada. shaqada adag ha isku badin. haddii aadan awoodin inaad samaysid waxyaabaha waaweyn, samey waxyaabaha yaryar adigoo u maraya wadooyin waaweyn. intaa filayso in ka badan ayay naftaada shaqo adag qaban kartaa. daawade, ogaanshaha qofka aad tahay, ujeedkaaga nololeed, halka aad hiigsanayso iyo qiimahaaga qofeed ayaa barbilow u ah isbeddelka nololeed. talaabada saddexaad, value, qayimka iyo anshaxa. qiimaha waxa uu tilmaamaa heerka muhiimadda shay ama fal, iyadoo ujeedka tahay in la go'aamiyo ficilada ugu fiican in la sameeyo ama habka ugu wanaagsan loo noolaado. inta badan qayimka asaasiga ah wuu xoogan yahay. ficilada aad samaynayso waxay ku xiran tahay qayimkaaga iyo akhlaaqdaada. qiimaha shakhsi ahaaneed wuxuu bixiyaa tixraac gudaha ah oo ku saabsan wax wanaagsan aad samaynayso. daawade, waxaad ogaataa arrinta ugu wanaagsan ee ku difaaci karta marka aad maqan tahay waa akhlaaqdaada iyo dhaqankaaga wanaagsan. noqo qof wanaagsan, wax wanaagsan samey weligaa. waxaa iska dhici karta in dad badan kaaga caroodaan waxa aad samaynayso oo ay dhaliso cajibinta inay meeshooda iska joogaan oo ay ku dhegnaadaan aragtiyadooda. talaabada afaraad, persistence, ku adkaysi. dhammaanteen waxaan rabnaa in aan guulaysano. waa ay fududahay inaad qorsho fiican nolosha degsato kadib noqoto qof naftiisa iyo dadkaba u wanaagsan. daawada, talaabada dadka kala reebto waa midan. haddii aadan lahayn kal adeeg iyo adkaysi, way adag tahay inaad nolosha guul gaarto. haddii aad is aragto adigoo nafta ka adkaanayso, kiskis isaga daynayo hadafka iyo qorshaha aad qoratay, ugu walaal waxaa kugu yar adkaysiga. dadka fashilmay waxa ay ka sameyn yihiin dulqaadirada iyo howsha oo dhex looga taga. aad bay u sahlan tahay inaad meel fadhiisato oo aad eegtid waxa soconaya nolosha. waxaase aad u adag inaad dhaqaaqid kadib aad wax u qabatid siday wax kugu muuqdeen. daawada, sida keli nafta loogu adkaa karo waa kal adeeg iyo joogtayn. howshaada si walbay kugu adkaato, xasuuso hadafka iyo yoolka aad leedahay si aad u gaarto guul. talaabada shanaad, consistency, joogtaynta. joogtayntu waa furaha guusha. joogtayntu waxay ka dhigtaa howsha mid fudud. waxaad ogaataa joogtayntu waxay si cajiib kaaga caawin kartaa dhisidda caadooyinka, gaaritaanka yoolalka fog. camalka wanaagsan oo la joogteeyo Allah subxaanahu wa tacaala agtiisa waa laga jecel yahay. daawade, hal maalin oo aad naftaada daaliso 5 saac iyo ka badan jadwalkaaga ku qabato, kadibna maalmo aad nasato oo joojiso, waxaa kaaga wanaagsan kaagana faa'iido badan inaad
inaad howshaada joogto ka dhigto sida maalin walba inaad hal saac ku bixiso jadwalkaaga inaad xirfad muhiim ah ku barato sidaas haddii aad 3 bil aan kala joogsi lahayn ku wado hubaal 3 bil kadib xirfadaas guul ayaad ka gaaraysaa daawade ogow waa mustaxiil inaad gaarto hadafkaaga joogtayn la'aan joogtayntu ayaa sirta ugu weyn ay leeyihiin dadka horumarka ka gaaray adduunkan kuwaasoo joogtayn ka dhigtay qabashada howlaha u yaalay xitaa haddii ay daalan yihiin ama caajisan yihiin daawade joogtaynta howlaha aad bilowday waxay astaan u tahay guushaada waxayna soo dhawaysaa rajada wanaagsan ee ah inaad gaarto hadafkaaga talaabada ugu dambaysa talaabada 6aad patience dulqaadku waa awoodda u adkaysiga duruufaha adag ugu horeyn daawade Allah subxaanahu wa tacaala tala saaro kuna sabar howsha adag aad qabanayso ogowna dulqaadka aad muujinayso waa heerka ugu sareeya ee xoogaaga shantii talaabo aan soo sheegay haddii aad si adag aaga soo gudubtay talaabadan ugu dambayn hubaal waad ka gudbaysaa mar walba filashadaada ha ahaato mid naftaada ku kooban naftaada wax ka baxsan say 100% waxa aaga filin daawada haddii aad tahay qof aqoon iyo khibrad isku darsaday balse aan lahayn dulqaad la'aantu waxaad ku naqanaysaa qof jilicsan cabasho badan wax walba u soo dadaalay si fudud aaga niyad jabo oo isaga taga daawade ha daalin ha joojin balse naso ha xiisa dhicin balse xamaasad yeelo kacdoonka ugu weyn ee aad ka geysan karto adduunkan waa inaad ku noolaato nolosha aad ku haminayso 6dan calaamadood ee aan soo wado haddii aad ku sugan tahay ama aad isku aragto ogow halis ayaad ku sugan tahay si degdeg ah isaga jooji aagana fogow calaamadahan halista ah calaamada koowaad excuses cudurdaaryo haddii aad isku aragto adigoo shay walba cudurdaar u raadinayo qalad iyo saxba xitaa aadan run u sheegi karin naftaada qaladkaaga kula saxnaado meesha fashilka ah ee had ku sugan tahay aad isaga qanacsan tahay haddii aad isku aragto calaamadan ogow waxaad ku sugan tahay wadada fashilka ee ka joog calaamada labaad fear cabsi haddii aad isku aragto wax walba adigoo ka baqayo inaad bilowdo cabsi aad ka baqaysid inaad ku fashilanto aad isaga joojiso xitaa wax aad taqaano dadka aadan maya dhihi karin dadka untooda u raaca isku daya dadkoo idil inuu raaligeliyo haddaad isku aragto calaamadaas ugu maangaab ayaad tahay wadada guuldarada ayaad haysaa calaamada saddexaad overthinking inaad saa'id u fikirto qofka inuu fikiro way wanaagsan tahay balse haddii aad isku aragto adigoo saa'id u fikirayo go'aanadaada badbadalayo marka wax saxan samee isdhaado dib u fikirayo kadib isdhahayo qof ama uu kaaga xumaadaa ama lagugu qoslaa ama ay dadka ku aqbali waayaan haddii aad xaaladan isku aragto ugu kalsoonida ayaa kugu yar waxaadna tahay qof fashilmaya si fudud loo maamuli karo calaamada afaraad comfort zone xerada ammaanka haddii aad isku aragto adigoo xerada ammaanka isaga jira xerada ammaanka waxaa laga wadaa qof aan isku day lahayn howl kasta ku adkaata gurigiisa iska fadhiya rabinba dhib inuu u maro si uu noloshiisa wax u qabsado iska haysta moobilkiisa tiktok iyo maalayacni waqtigiisa inta badan uu ku lumiyo haddii aad isku aragto calaamadaas isqabo wax badan ayaa kaa qaldan intaad hadhow ka shalaan lahayd calaamada shanaad baleem eedayn haddii aad isku aragto adigoo dadka qaladkooda iyo qaladkaaga ku eedeynayo cabashadaaduna badan tahay qaladkaaga xitaa aadan dusha saaran karin calaamadaas haddii aad isku aragto ugu kalsoonida ayaa kugu yar isgaar fashil ayaad ku socotaa calaamada ugu dambaysa calaamada 6aad quits ka joogsi haddii aad isku aragto adigoo joojiyey isku day walba waxba aadan samayn karin xanuun aadan ku dareemin guuldarooyinka isku day walba nolosha aad joojisay calaamadan halista ah haddii aad ku sugan tahay ama aad isku aragto isqabo walaal waxaad burburinaysaa riyooyinkaaga iyo noloshaada idil 6dan calaamad aan soo wado ku bedel 6dii hore aan soo sheegay si aad naftaada aga adkaato kadibna guul aad u gaarto calaamada koowaad discipline isxakamayntu waa shayga kaliya nafta loogu adkaado nafta ma jeclo howl adag shaqo iyo waxbarasho waxay ku dareemaysaa caajis iyo daal balse daawade naftaada edbiso wax walba aad ku dareemayso caajis iyo daal haddii aad samayso waxaad ku noqonaysaa qof adkaysi badan aadna ugu adag naftiisa daawade joogtay waxa ay nafta nacab tahay si aad u gaarto waxa aad jeceshahay calaamada labaad courage geesinimo haddii aad leedahay geesinimo aad ku wajihi karto duruufaha iyo fashal kasta ku soo gaara waxaad haysaa wadada guusha daawada waxaad ogaataa guusha waxaa iska leh kuwa xirtay dharka geesinimada si ay wax u sameeyaan waxaase naadir ah inay guusha noqoto saami ay yeeshaan fulayaasha ka baqa caqabadaha guuldarada mid weligaa ha sugin booska aad hadda joogto inay cid kuu imaato ku caawiso guulna ku gaarsiiso weligaa hal ruux oo geesinimo weheliso waxa uu dhigmaa rag badan calaamada saddexaad action ficil samee
daawade haddii aad tahay qofka ugu caqliga badan iyo kan ugu cilmiga badan dunida oo idil balse aan ficil samayn karin aqoontiisa wax ku qabsan karin ficilna ku samayn karin ugu waxaa tahay kan ugu jaahilsan dadka waayo aqoonta aan lahayn fulinta waxay ka liidataa jaahilnimada waxaa jira dad badan fikradaha haya balse aan ficil samayn karin iyo waxaa jira dad aan fikir badan lahayn balse leh ficil aan fariisanin qof asaagiisa waxba ka sugin dadaala si walba isugu daya inay nolosha ugu guulaystaan daawade nolosha ma ahan riyo oo keliya inaad ku noolaato nolosha waa halgan u kac hamigaaga si aad ugu gaarto guul calaamada afaraad growth koritaan mirta marka dhulka lagu beero qofka iska leh sida uguma tago si wax walba waa u imaadaa xaaladda ku soo kordhay ayuu eegaa kadib biyo ayuu ku shibaa adigana daawade naftaada siday u korto ka bax xerada ammaanka ugu horeyn noqo qof jirkiisa ku dadaala maalin walba si joogto ah saacad u sameey aalmiito ama saacad socod u aad dadka qaar ayaa aaminsan in jirdhiska iyo aalmiitada keliya jirka keliya lagu dhiso balse waxaadan ogeyn aalmiitada waxa ay dhistaa maskaxdaada waxay kordhisaa awoodda fakirkaaga waxayna boqol kordhisaa kalsoonida naftaada calaamada shanaad responsibility mas'uuliyad qodobkan guusha waa u muhiim qof aan guuldaradiisa iyo hadda meesha uu joogo mas'uuliyaddeeda qaadi karin isbeddel iyo guul inuu sameeyo way adag tahay waa inaadan u ogolaan naftaada inaad ku noolaato fikradaha qaldan waa fashilmi kartaa shaqo waaweyn kartaa nolosha way kugu adkaan kartaa balse naftaada dib u xisaabi walaal qof caafimaad iyo fursad haysto alxamdulilah inuu dhaaweeye noloshan horumar weyn ayuu ka gaari karaa ilaa aan awoodno inaan maamulno wakhtigeena wax kale ma maamuli karno calaamada ugu dambaysa calaamada lixaad persistency ku adkaysi daawade halgankaaga nolosha ha suga in 100% cid kugu taageerto markaad niyad jabto u dhawaato inaad isdhiibtid sidaal ka dhigo isweydii sheegan maxaan u bilaabay marka hore waxaa ku soo baxaysa in guul mooyee wax kale aadan ku qancin ugow way adag tahay in laga adkaado qof aan weligiis isdhiibaynin daawade ma jiro xuduud uu caqliga waxqabadkiisa ku siman yahay marka laga reebo tan aan anaga isaga qanacnay ugu dambeyn daawadaha sharafta leh waxaad ogaataa ilbiriqsiga keliya aad guulaysanaysid wuxuu ku ilowsiinayaa dhibka iyo rafaadka aad u soo martay guusha haddii aad nala soo gaartay halkan aad u mahadsan tahay haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar la wadaag asxaabtaada oo share u dheh intaan muuqaalkan lacina ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo horumar